Assalaamu calaykum waraxmatullah. Ninkan ayaa waxaa lagu magacaabaa Ted Williams. Muddo 4 sano ku dhow waxa uu ahaa nin dowrsada oo seexda meelaha darbajiifyada oo halkaasi uu ku qaadan jiray waxyaabaha sadaqada iyo waxyaabaha uu tuugsado. Ninkan ayaa sidikadiisa waxa uu la kulmay nin ka shaqaynaya idaacad bishii Janaayo 3 2011. Ninkan ayaa waxa uu la dhacay codka ninkan uu leeyahay. We'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. Kadib ninkan ayaa waxa uu ka duubay cod amba video. Kadib baraha bulshada ayuu geeyay. Maalinteedii waxaa loo yimid amba u yimid Ted Williams idaacado waaweyn oo ka dalbaday inay ka haystaan halkaasi oo ka bilaabay heerkiisii taajirnimo amba uu caan ku noqonay uu kaga baxay nolosha faqiirtinimada. Ted Williams kuma ekaan inuu taajir noqdo amba uu ka baxo noloshii faqiirtinimada si waxa uu dib ugu soo noqdaa oo uu gacan siiya dadyoga saboolka ah waxaanu shaqo siiyaa dadyoga camal la'aanta ah. Ted Williams waxa uu dhalay 9 carruur ah, 7 waxay yihiin gabdho halka 2 kale ay yihiin wiilal. Ted Williams ama Golden Voice sida qof kasta uu yaqaano caanimadu kaliya maaha inay noqoto taajirnimo se waxay noqon kartaa hibooyinkaaga gaarka ah Ilaahay kugu manaystay waa inaad Ilaahay ugu mahadnaqdaa oo tiraahdaa alxamdulillaah. Cola from the wonderful folks who put the in cola. Biyuhu ma gudbiyaan dabka amba danabka amba korontada. Kaliya waxa gudbin kara biyaha aan saafiga ahayn. Taasina waa sababta keenaysa in biyaha saafiga ayna gudbin danabka amba korontada. Dadyoga qaar ayaa waxa laga yaabaa in habeenkii amba marka ay seexanayaan aanay neefsan karin. Xanuunkan ayaa waxa la yiraahdaa Audens curse. Waa xanuun sababaya in qofku marka uu seexdo aanu neefsan karin. Xanuunkan ayaa waxa laga helaa dadyo aad u yar oo dunida ku nool. Siyaabaha loola tacaalo qofka xanuunka ku dhacaya ah in koronto lagu dabeeyo oxygen amba lagu dhaliyo sida ay ku dhaliyaan isbitaalada waaweyn oo habeenkii qolka looga xiro si isbitaal ahaaneed ah. Caafimaadka kaliya waxa dareemi kara dadka xanuunsanaya. waa inaynu Ilaahay u mahadnaqnaa caafimaadkeena uu siiyay taamka ah. intii xanuunsanaysana Ilaahay caafiyo aamiin baanu leenahay. weliga hore ma u aragtay qof labadiisa indhood ay kala duwan yihiin midabadooda? waa arrin caadi ah. arrintan ayaa waxa lagu magacaabaa heterochromia. waa xaalad genetic ah. waxba caafimaadka ku dhibi mayso amba u soo kordhi mayso xaalad caafimaad daro. haddii aad aragtay qof noocan oo kale fadlan xagga commentiga noogu reeb. haddii aad ka heshay muuqaalkana like saar kuna biir kanaalka si aad ula socotid muuqaaladan soo gelino adoo furnay notificationka amba gambaleelka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.